Qisa cajiib ah, gabar ayaa habeen waxay ku soo daaday guri ay degneed gabar ay saaxiibo yihiin, halkaasoo ay habeenkaas wax ku baran jireen. Markii waxbarashadoodu ay soo dhammaysteen kadib ayay gabadhii soo baxday. Intii ay waddada maraysay ayay cabsi dareentay maadaama ay waddadu cidla ahayd, waxayna tala saaratay Allah. Wax yar kadib waxay aragtay nin geed horteeda ku gambanaya, way naxday. Waxay Allah ka barisay inuu badbaadiyo. Quraanka ayayna afkeeda ku qabatay si uu Allah ugu badbaadiyo cadowga horteeda taagan. Ayadoo quraanka afkeeda ku haysa ayay ninkii si tartiib ah u soo agmartay. Gurigeedii ayayna si nabad ah ku tagtay. Subaxii ayay waxay maqshay in waddada ay soo martay geedka ninka uu ku jiro agtiisa lagu dilay gabar. Xilliga uu dilka dhacay waa qadar 10 daqiiqo kadib markii ay meesha martay. Waxay dareentay in ninka dilka geystay uu yahay kii ay soo agmaraysay. Si ay booliska ugu sheegto ninka tilmaamtiisa ayay aaday saldhigga. Kadib taliyihii saldhigga joogay ayaa u sheegay inay hayaan dhowr nin oo habeenkaas la soo qabtay, loogana shakisay dilka gabadh inay geysteen. Sidaa darteed wuxuu gabadhii ka dalbaday inay raggaas wajiyadooda eegto oo ay sheegto haddii uu ku jiro ninkii ay habeenkii aragtay. Gabadhii ayaa si geesinimo leh u soo hor istaagtay raggii eedeysanayaasha ahaa, waxayna ka aqoonsatay ninkii ayaa isna dembigii qirtay. Gabadhii ayaa taliyaha ka codsatay in ninka loo weydiiyo sababta uu iyada u soo weerari waayey. Markii la weydiiyey, ninkii ayaa ku jawaabay keligeed maysan ahayn, waxaa dhinacyada ka socday 2 nin oo dhaadheer oo xoog badan. Subxaanallah, malaha oo malaa'igtii Rabbi, ileen quraanka ayay afkeeda ku haysay markay soo agmaraysay. Allow quraanka u helno wadhig.